بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشافعي: وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم، والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر. وللمؤلفة قلوبهم waxay leeyihiin fii qasmi sadaqaati aw fii qismi sadaqaati sahmun ay ku leeyihiin. hadda wuxuu ka soo hadlay mualafati quluubuhum oo fey-a waxay ku leeyihiin oo mar badan musanifka soo celceliyay. intana wuxuu leeyahay mualafati quluubuhum fey-a sadaqada maxay ku leeyihin zakawaadka. waladii axfadu fiihi min mutaqadimi اlkhabr, dadka khabarkooda hormaray salafkii waa la dhihi karaa, ama maa taqadama fiihi min alkhabr, labadaba. ana cadiy bna xaatim aطaa'i jaa abaa bakrin sidiiq buu u yimiday, axsibuhu b300 min alibili min sadaqaati qowmihi buu ula yimid. 300 halaadoo geel a soo wado ou dadkiisa ka soo arooriyey. fa acطaahu abuu bakrin faacطaahu cadi waxaa la siiyey abuu bakrin wuxuu siiyey minhaa 30 baciiran. wa amarahu wuxuu amray an yalxaqa bikhaalid bni اlwaliid, biman inuu u wato aطaacahu min qowmihi, inuu khaalid bni waliid oo dadkii ahlu ridda iyo sadaqaadka diiday la dagaalamayo iyou amray inuu asiga oo cadi ah iyo dadka asiga waafaqay oo qoomkiisa ka mid ah. markaasuu iri fajaaءahu abuu bakrin wuxuu ula yimid cadi bizuhaai 1000 rajulin, wax 1000 rajul u dhow, wa ablaa bala'an xasana. marka 30 baciir yaa sakadii cadi bni xaatim laga siiyey. yacni intaas waa ka badan tahay alcaamiliina calayha. soo aruurintii 300 halaad 30 lagama qaado karo. marka maxay tahay lacagta geelaas oo sadaqada ahaa in cadi bni xaatim 30 laga siiya maxay ka dhigan tahay? waladii yakaadu yacrifu lqalbu buuri, waxa uu ku dhow yahay qalbiga inuu garto bilistidlaal ku garto bilikhbaari ou daliishto annahu ana abaa bakrin acطaahu cadi waasi iyaaha 30kii min sahmi lmu'alafati buu ka siiyey. 300 iyo wixii hore u sii hayay 30 halaada min almu'alafati quluubihim loo siiyey. faimaa zaadahu targiiban fii maa sanaca, waxuu 30ka u siiyey wuxuu sameeyey yaa la jeclaysiinaya. oo waxaa weyaan iyadoo wakhtiga adag yahay inuu 300 halaad dadkiisa ka keeno wax sahlan ma ah, mukaafa'atan lahu. wa imaa liyata'alafa biha gayrahu min qowmihi, ama qowmkiisa dadka kale markii ninkii ayaga horjooga u ahaa saas loo karaameeyo inay ku soo raacaan oo qalbigooda ku soo dumo. miman laa yahiqu minhu, nin uu dadka uusan ku kalsooneen bimidli maa yahiqu bihi min cadiy bni xaatim. abuu bakrin isagoo cadi uu kalsoon yahay dadka uusan ugu kalsooneen oo qowmkii cadiyi ka mid ah yaa in lagu soo dumo la doonayay. qaala wuxuu ihi faaraa an yucطaa in la siiyo min sahmi lmu'alafati quluubuhum fii midli hada almacnaa in lagu siiyo. in naزlat naazilatun bilmuslimiina hadday ku degto, walan tanzila in shaa allahu, aydoo kalena soo noqon mayso. marka waxaa weeyaan wuxuu rabaa shaafici abu cabdillaahi inuu makhraj u sameeyo 300 halaad 30 in laga bixiyo kama go-do. sinfi ahaana laguma mutaysan karo,
qof keligiis kuma mutaysan karo, caamiliinna kuma mutaysan karo. marka ta'liif ayuu ku daray. marka ta'liifkii saamigoodii xataa uu ka badan yahay. marka wuxuu leeyahay ta'liifkan laysa lishakhsi cadiy bni xaatim ma ah, wa inamaa lita'liifi qowmihi. haddii qowm dhan la yidhaahdo 30 waxba kama aha, waa fiican tahay. laakiin aniga waxaan u arkaa mas'alada tasarufka abubakrin waxa weeyaan akbaru min an yakuuna min qismi almu'alafati aw min gayrih, liannahu baydat alislaam yaaba khatar gashayba. nebiga markuu dhintay in lagu kala tago yaa khatar noqotay, oo dadkii acraabta oo maadatulislaam ahay oo jihaadka iyo gurmadka lagu ogaay baa islaamkii qaarkoodna ay ka baxeen, qaarkoodna sakadii ay diideen. marka maantaasoo kale wixii islaamka laysugu soo celi karo oo ay noqoto kelimatullaahi alculyaa, fitnadan lagu dami rabo wax kasta ayagaa ka horeey. marka xoolaha sakada haddii lagu wada bixiiba xataa maalinkaas ka hadal ma laha. marka in qismi almu'alafati bas looga dhigo inay tahay mid la geli kara ma ahane, maalinkaas islaamkaaba lagu badbaadinayo. si kastana marka waa loo ogol yahay wixii la haaya in muslimiinta lagu badbaadiyo. wadalika an yakuuna alcaduwu inuu ahaado weeyaan bimowdicin muntaatin ay baciidin laa tanaaluhu ljuyuush, meel aada u fogow cadowga jooga, askartana ma gaari karto ilaa bima'uuna, yacni nafaqo iyo culays mooye. wayakuunu biisaa'i qowmin you cadowgaas ahaanayaa. cadowga waxaa ag jooga qowm min ahli sadaqaati ka mid ah, dad oo sakada in la siiya ay tahay. fa acaana calayhim ahlu sadaqaati. marka waxa weeyaan hadda fiiri, ahlu sadaqaat wax kaalmayna ma aha, ayagaa la kaalmayna. dadkaas oo cadowga u dhow intii jeeshka oo meel fog laga soo ratibi lahay, kuwaan cadowga u dhow yaa waxaa la yidhaahdaa naqliga oo almusani fii taqsiimi shaafici tashwiish badan oo geli baa la yidhaha, xataa shuraaxda way sheegeen. walidaalika haddaad maawardi ka fiirisa si fiican oo u tartiibi, sidaan wuxuu iri waa tashwiish. marka ulajeedada waxa weeyaan dadkaas cadowga noqday ama cadowga weligiisba ahaa waxaa u dhow dad ahlu sadaqaad oo yacni in wax la siiya ay tahay. marka fa acaana calayhim ahlu sadaqaat, dadkii sakada bixinay haddii la yidhahdo fa acaana calayhim ahla sadaqaat baa in la yidhahdo ay tahay ahla sadaqaat. fa acaana calayhim waaligii wuxuu u kaalmaynaa ahla sadaqaat imaa biniyatin niyadoodoo lagu adkaynayo. fa araa an yuqawuu bisahmi bisabiili illaahi min asadaqaat. dadkii niyadoodii yaa la kormarinayaa, waxay leeyihiin annaga cadowgaan ma waajihi karno, in wax la siiya, hadday wax la siiyana waa ogol yihiin. fa araa an yuqawuu dadkaas niyada daciif ka noqday bisahmi sabiilillaahi in lagu adkeeyo oo min asadaqaati ay ku lahaayeen. niyadooda daciife waa lagu kaba. wa imaa laa yuqaatiluuna ilaa bian yucطuu sahma almu'alafati aw maa yakfiihim minhu, ama ayagaaba afka kuula baxeen dadka cadowga ugu dhowaay, ma dagaalamayno ilaa qismigii mu'alafati quluubuhum nala siiyo, ama wax annaga nagu filan haddii na siiya cadowgan hagteenna jooga annagaa ku filan. ayib, marka
waa lagu bixi karaa xaaladaas oo kale macnaha waxaa loo jeedaa cadowga islaamka ah haddii la yidhaaho la soo diyaariyo ee darafkaas dagaal ha ka galaano waqti dheer ay qaadanaysaa dadka muslimiinta ahoo aan niyad dagaal u haynin oo ayaga dad ugu dhow ah la diyaarinayo xoolaa la siinaa niyadooda la qaweynaa hubaa lagu siinaa ayaga say uga filnaadaan waa dhici kartaa wakadalika ida intaata alcaduwu fakaanuu aqwى calayhi min qowmi min ahli اlfayءi yuwajahuuna ilayhi bibucdi diyaarihim wahiqali ma'uunaatihim wayadcufuuna canhu fain lam yakunuu mila ma wasaftu mima kana fi zamani abi bakri min imtinaaci akar ahli اlcarabi bisadaqati cala riddati wagayriha lam ara wakadalika ida intaata alcaduw cadowga hadduu fogaado oo fakaanuu aqwى calayhi ay ka awood badan yihiin min qowmi min ahli اlfay yuwajahuuna ilayhi bibucdi diyaarihim waa cibaaraadka oo ikhtisaarka mukhilka ah waay wakadalika ida intaata alcaduw hadduu fogaado oo fakaanuu aqwى calayhi ee lagu kari karo min qowmin oo min ahli اlfay-a lagu kari karo yuwajahuuna ilayhi loo jihaynayo cadowgii bibucdi diyaarihim cadowga diyaartiisaa fog iyo wa hiqali ma'uunaatihim wayadcufuuna canhu meeshaas inay gaaraanna way ku adag tahay fiir cibaaradaas arag macno ma keenayso waxaa weeyaan waxaa loo jeedaa hadduu cadowgii uu fog yahay oo maxaan ku idhaahdaa dadka ahlu fay-iga ah in loo diyaariyane ay u baahan tahay meel fog inay ka yimaadiin ama qarashkooda badan yahay ayna gaari karin waa la mid oo mu'alafati quluubuhumaa laga siinaya cibaarooyinkaas oo dhan kulligee dacfi baa ku jira fain lam yakun lam yuujad mithlu maa wasaftu mima kaana fii ardi abi bakrin wixii aan soo sheegay wax la mid haddii la waayo oo zamanka abi bakrin ahaado min imtinaaci akar alcarabi carabti akarkoodii diiday bisadaqati diiday cala riddati iyo wagayrihaa cala riddati ku diiday sadaqa ma bixinayn islaamka waa ku gaalownay ama wagayrihaa gayri ridda waxay yidhahdeen abuu bakrin nebigaa sakada la sii jiray abuu bakrin xaq uma laha inuu naga qaado waa islas midna islaamkii ma ayna diidin sakadii ay diideen marka cibaaradaas oo dhan ikhtisaar mukhil jiddan ninkii oo alxaawi akhriya arkayo sida loo tartiibiyey wax meesha ku yaalla maba waxba iskama lahabo walam ara an yucطى axadu min sahmi اlmu'alafati walam yubalignii ana cumara walaa cuhmaana walaa caliyan acطow axada ta'alufan cala اlislaam wuxuu iri lam ara arki maayo an yucطىa axadu in la siiyo maanta min sahmi اlmu'alafati dadka islaamka loo soo dumaayo walam yablugnii ima gaarin ana cumar walaa cuhmaana walaa caliyan acطuu axada inay maal siiyaan ta'alufan alislaami islaamkaasoo loo soo dumaayo lacag nin lagu siiye ma arkin mana maqlin waqad agna allaahu walahu alxamdu kaiira alislaama ilaahay waa deeqay an yuta'alafa calayhi rijaal dad kale in loo soo dumo ilaahay islaamka waa ka deeqay islaamku waa isku filnaaday wa qaala fi ljadiidi laa yucطىa mushrikun yuta'alafu cala lislaam ma jirta buuri lianna allaha khawala almuslimiina ilaahay wuxuu siiyey amwaala almushrikiina lalmushrikiina ilaahay ma siinin amwaala almuslimiina ma siinin wajacala sadaqaati almuslimiina ilaahay wuxuu ku yeelay marduudatan fiihim gaal laga siimaa iyagaa la siinaya warkan waa cadyahay marka biictibaari maa kaana fii zamani alimaam الshaafici fii nihaayati اlmiatayn
يو كتبتان قري وركي سوا صح واقاس مؤلفة قلوبهم ماهن، لكن لو حصلت حالة مثل حالة المسلمين في أوائل الإسلام أو في بداية زمان أبي بكر إن ددك حوليه لغو صدوم أو يصفك كلا قلان إيمانكو لغو حديدا ما جرت مركا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وحصح إن لي هذا مؤلفة قلوبهم لبا حال الله فيرنا هدي مسلمين تأقويهين نكي ديدا نكي كلابا قعان سريان تأليف باهنو هدي وضعي أدق أو يمادو أي أباهدان دad kale in islaamku kusoo dumaan ama gaalo xataa hanala dagaalamina qoladaanan u tafaruqayna haddii xataa ay ka yeelaan in la siiyo dhib ma laha qaala wariqaabu lmukaatabuuna min jiiraani sadaqaati wallahu aclam qaala walaa yuctaqu cabdun yubtadau cidquhu fayushtaraa fayuctaqu ilaahay waa fi riqaabi markuu yidhi maxaa lagala jeedaa imaamu shaafici wuxuu yidhi المكاتبون وكوا لكتابي أو حرمدود لقاقتي أو من جيران الصدقات صدقة ماشا لغو بحلانة كدو مركب حوليه في الرقاب هذه هذا في فك الرقاب رقاب كاس وحويا نن يتشوف إلى الحرية سيد كيس كله الشيء إنه العكسية منجمة saddex goor baan lacag kuu kala keenayaa muqaabila inaad i xoraysid buu yidhi marka lacagti waa lagu deymiye waa la qoray marka ninkaas sidaasee lacagti waa laga bixina ama sayidkaa la siina ama asaa la siinaa isaga bixiyo khilaafka ma joogo markaasuu imaamu shaafici wuxuu yidhi walaa yuctaqu cabdun lama xureeyo yubtadau cidquhu lagu bilaabayo fayashtaraa la soo gadanayo fayuctaqu ma jirta buuri nin addoon oo layska leeyaho meel fadhiyo warkaali waa ku xuraynaynaa sayidkaada meequu uu kaa rabaa haddii lagu xuraynayo kunuu iga rabaa kunkii waa kana lama dhahay buu leehay ninkaa waa iska fadhiyaa wa hada qowlun khulifa fiihi shaafici wa qowlu maaliki abu xaniifa wa fi riqaabi nin addoon khaalis ah oo lagu xureeyo iyo nin mukaatabe labadu waa isla soo galaya لأنه مؤداهما واحد كل واحد بحاجة إلى عتق رقبته مركا لا وجه لتخصيص الرقاب بالمكاتبين فقط دليل لو ما هاي نينك اللي هاي أو تبر أن هاي نسكو حرية وأن كتابة قليل قد يكون أحوج لأنه نينك مكاتبة كان على أمل إنه إسحرية بديع كرت نينك كان قوستي inta loo yimaado warkaali waa ku xoraynaynaa sayidkaada wuxuu sheegtaan siinaynaa la yidhaahdo wax ka fiican ma jiraan waalghaarimuuna sinfaani ilaahay waalghaarimiina wa fii sabiili illaahi ghaarimiinta maxaa lagala jeedaa laba qaybu u qeybi waana sax sinfun daanuu fii maslaxatihim aw macruufin wagayri macsiya qeyb deymoobay sinfun daanuu qeyb deymoobay في مصلحتهم أي مصلحة ديموبي أو معروف وناك إي وغير معصينا أنجل ثم عجزوا عن أداء ذلك إن متكاس اسكبحيان كعاجز في العرض بديعة كبحيان والنقد انت ما هايستان معناه اللي النقد أنا ما هايستان دول إيو قرية إيو badeeca oo dukaan taallana ma haystaan marka waa daday deynka soo qaateen tijaaro galay uu ku khasaaray kaba soo qaadayntana waa loo rabaa lacagtina ma haayo ninkaas fa yuctawna fii gurmihim bicajzihim deyntooda daraaddood bisababi gurmihimaa lagu siinaa bicajzihim bisababi cajzihim deynti maadaama deyn ay qabaan iskana bixi waayeen deyntaasna ay waxa lagu qaatay macsi aysan ahayn ee adiga naftiisa inuu ishagaajiyo ama wanaag uu ku samaysto oo ku soo deyntay waa laga bixinaa buuri kuwaas kuwa ayga deynta maslaxadooda u deymoobay u qaamoobay waa fa in kaanat lahum curuud hadday leeyihin curuudu tijaara
yaqduuna minhaa duyuunahum deyntooda ay ku bixi karaan fahum aghniyaa waay ninaa xoola soo qaatay xoolihii uu soo qaatay deynay ku noqdeen laakiin deynha ku noqdaane tijaaro kale u socotay maraakibuu leeyahay bakhaaro buu leeyahay wax kalou leeyahay oo hadduu doono deynta lagu leeyahy iska bixiyo intuu iska bixiyaa wax badan u harayaan laa yucطawna xataa yabra'uu min addayni laa yucطawna la siimaayo xataa yabra'u likay yabra'uu min addayn uma laa yabqaa lahum maa yakuununa bihi aghniyaa horta waa la sugayaa deynta iska bixiya alaleeyahay markay iska bixiyaan uma laa yabqaa lahum maa yakuunuuna bihi aghniyaa xoolihii deynta hadday ku bixiyaan faqiiray noqdeen markay faqiir noqdaan faqiirnimaa lagu siinaa deynima laguga siimaayo waxaada deynta isaga bixi markaad isaga bixisa xaaladaadan qiimeyneynaa marka waxaan ogaanaynaa inaad maxaan ku iraahdaa faqiir noqotay oo wixii aada haysatay deyntii lagu lahaa isaga bixisa sinfigaas waa sinfi wa sinfun daanuu fii salaaxi daati baynin wa macruufin wa sinfin daanuu way ku daynoobeen fii salaaxi daati baynin dad kala fogaaday isku soo hagaajintooda isku soo dhoweyntooda ay dayn u galeen iyo wa macruufin walahum curuud bay leeyihiin xoolo kale badeeco ah taxtamilu xamaalaatihim deyntooda lagu bixi karo aw caamatahaa taxtamilu caamatahaa deynta badigeeda lagu bixi karaa waa nin maslaxa muslimiina dadaa islay rabay diyaa la ysku qabsaday aniga kaama dilin iyo anaada iga disheen qabiilo dhammaa isku dhici raba wuxuu ri wixiina anaa idin siinaye kala hara adiga maxaad rabtaa intaasaan rabnaa ay adinkana wax ladainkama rabo wixii aad nimankan ku sheegayseen anaa bixinayo kaas waa xamaalaadka marka ninkaas xoolo waa leeyahay wa in biicad xoolihii haddii la biiciyo adara daalika bihim dadkaas oo dadka daraaddood u qaamoobay waa dhibaya wain lam yaftaqiruu ayba faqiirnimo gaarsiinina laakiin culaysaa la wajahay fayucطaa haaulaa'i dadkaas qismi اlghaarimiina wax laga siinaa wa tuwafaru curuuduhum maxaan ku yidhaahdaa badeecadooda iyo tijaaradoodana waa loo badbaadinaa kamaa yucطىa ahlu اlxaajati min alghaarimiina xataa yaqduu sahmahum aywa marka fayucطىa haaulaa'i watuwafaru curuuduhum lama dhahayo xoolaha ay leeyihiin oo si gaar u lahaayeen hala gebgabeeyo war waxaa leey war ninkaa dan guud buu u qaamoobay xoolihiisa u dhaafa deyntina ha laga bixiyo sidaasuu leeyahay ayb kamaa yucطىa ahlu اlxaajati min alghaarimiina xataa yaqduu sahmahum kamaa yucطىa ahlu اlxaajati baahida ahalkeeda si loo siinayo min alghaarimiina kuwa deymoobay oo maslaxa guud aan u deymoomin oo naftooda u deymooday sida wax looga siinayo yaa kuwa danta guud u deymoobaa laga siinayaa xataa yaqduu sahmahum sahmkooda intay ka dhammaystaan ay sakada ku lahaayeen bimacnaa ninka dadka muslimiinta ah dantooda guud u deymoobay xoolihiisa lagama bixinayo dantan waxaa laga bixinaya min alghaarimiina sahmigoodi oo waxay la mid yihiin deyntaas sida looga bixinaya ninkii asiga deymoobay maslaxadiisa gaarka u deymoobay sida looga bixinayo yaa qaantan guudna ninkan looga bixinaya saas waay waxtaja shaafici wuxuu u daliishay biana qabiisata bni lmukhaariq qaala inuu yihi waa nin saxaabiya taxamaltu bixamaalatin yani qaan baan ximbaartay dad
baan iri deyntii aad dadkan ka rabteen anigaa idinka siinayo faataytu الnabiy salى اllahu عalيه wasalam fasaأltuhu faqaala nuؤdihaa canka aw tukhrijuhaa canka muxuu iri ma annagaa kaa bixinayna ama adigaa aw nukhrijuhaa canka waa laba riwaayo nuؤdihaa canka aw nukhrijuhaa canka waa laba shaki raawi idaa qadima nacamu sadaqati zakadii geeleedu hadduu yimaado annagaa kaa bixinayna buu iri maadaama aad dad maslaxa guud aada u qaamowda yaa qabiisatu almas'alatu xarumat ila fi halaaثin imaamu shaafici yarwi bilmacna rajulin taxamala bixamaalatin nin qaamoobay dad dantiisa faxallat lahu lmas'alatu baa u xalaali xataa yu'addiihaa uma yumsiku dadkii daraaddeed u qaamoobay yaa waxaa u bannaan inuu dadkii u sheegto yihahdo deyntaasaan maslaxa guud u qaatay marka haddii laga bixiyane waa inuu meeshiisa ku ekeeya inuu caadiga dhaqan ka dhigta ma ah iyo wa rajulin asaabathu faaqatun iyo nin ay baahi gaar e ku dhacday wuxuu cunaba ma haysto iyo waxaajatun gaajo iyo dhibaato xataa shahida aw takalama halaaثatu min dawi lxija min qowmihi yaa hadleen ana bihi xaajatan wa faaqatan ninkan dhib iyo gaaja isla haysato faxallat lahu lmas'alatu baa u xalaali xataa yusiiba intuu ka asiibo sidaadan min cayshin sadaad haddaa tira toosnaasho waa sidaadna waxa waaye kifaaya intuu ka helo wax asiga ku filan aw qiwaaman min cayshin aad tafsiirinayso wax oo noloshiisa toosinayo uma yumsiku dhaqanka bandhiganaya wa rajulin asaabathu jaa'ixa ninaa musiibo samaawiya ku dhacday faijtaaxat maalahu maalkiisa beertii oo dhan baa cudur koro intuu ku yimida ama anyax iyo wixii waa la dhammaystiray faxallat lahu sadaqatu baa u xalaali zakadii xataa yusiiba sidaadan min cayshin aw qiwaaman min cayshin uma yumsiku famaa siwaa dalika min almas'ala in wax saddexdaas ka soo haray wax lagu weydiistaahu fahuwa suxtun xaaraam waay qaala shaaficiyu fabihada qultu fi lghaarimiina wa qowlu الnabiyi taxilu lahu اlmas'alaةu fi اlfaaqati wاlxaaja yacni wallahu aclam nebigu wuxuu ula jeedaa waxaa laga siinayaa min sahmi اlfuqaraa'i wاlmasaakiin lalghaarimiina ma aha ninka hadduu xaajo yahay dayn ma qabo waa baahan yahay waxna ma haysta fuqaradaa laga siinaa wa qowluhu xataa yusiiba sidaada min caysh yacni wallahu aclam aqala isma alghina intii la yihahdo inta ugu yar ninkan waa hodan intii laga yiraahdo ninkan waa hodan intii laga yiraahdo inta ugu yar oo mar faqriga hadduu ka baxo oo bismi lghinaa galo waa laga joojinaa marka waxaa waaye waxaa leeyahy noloshaada waa istaagtay baahidii waa kaa hartaa laleeyahy waliqowli الnabiy sal اllahu alayh wasalam laa taxilu sadaqatu lighaniyin ila likhamsatin ligaazin fii sabiil axaadiidan mashhuur waa buluuq lmaraam wغayraha idinku soo wada marta ligaazin fii sabiili اllaahi taas waaba la sheegay wa fii sabiili اllahi aw licaamilin calayha wاlcaamiliina aw ligaarimin wاlgaarimiina aw lirajulin ishtaraaha bimaalihi ninaa zaka soo qaatay neefuu zaka ku soo helay adigoo hani a waad ka iibsan kartaa oo la dhihimaa xoolahan waa zakee ha iibsanin laguma dhahay maalkaadii aw lirajulin lahu jaarun miskiinu fatasadaqa cala lmiskiini fatusaddiqa cala lmiskiini faahda lmiskiinu lilghaniyi aw lirajulin lahu jaar miskiin fatusadiqa cala lmiskiin baa lagu sadaqaystay ninkii miskiinkaa zaka la sii faahda lmiskiinu lilghaniy faqiirkii zakow ku qaatay wixii markau helo yihi war ninkaan weligiis wax isii jiro diriska ah aan wax uga hadiyeeyo ninkaan sadaqa ahaan loo siimaayo zaka ahaan loo siimaayo haniga faqiir yuhdi lilghaniy waa bannaan tahay fabihada qultu yucطى alghaazi wاlcaamilu wain kaana ghaniyayni
wاlgaarimu fi اlxamaalati calى maa abaana laa caamun wuxuu iri yucطى alghaazi ninka jihaadka galaya zakadii waa laga siina iyo wاlcaamilu calى sadaqaatin wain kaana haniyeyni walow kaana haniyeyni baa iska ahaada liannahu bismi lcamal bay ku qaadanayaan ninkaana jihaadu galaa kana shaqo qabtuu ku qaato waayo wاlgaarimu fi lxamaalatina waa lamid calىa maa abaana wixii nebiga uu soo caday laa caamun ma aha nin kastoo dayn qabo lagu sii maayo bismi اlghaarimiin ninka haddii dayn uu qabo ou asiga maslaxadiisa u daymoobay hadduu xoolo leeyahay zaka lama siinayo xoolahaada deynta isaga bixiyaa laleeyahay laakiin haddii uu yahay nin khaarim liajli xamaala ou dad daraaddeed u daymoobay walow hanib ahaadee waa la siinaa sida ninka mujaahidka oo kale waa wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin.